Waan idin salaamay asxaabteyda, soo dhawaada. Pregnancy ama xilliga ay hooyada uurka leedahay waxaa loo qeybiyaa ilaa 3 qaybood oo kala ah 3 bilood ugu horeyso oo loo yaqaano first trimester, 3 bilood ku xigto oo loo yaqaano second trimester, iyo 3 bilood u dambeyso oo loo yaqaano third trimester. Hadduu Allah ka raali noqdo maanta waxaan wax yar ka hadlaynaa 3 bil ee ugu horeyso marxaladaha uu marayo uurjiifka, xaaladaha hooyada ay isku arkayso iyo cuntooyinka u wanaagsan oo ay tahay in ay qaadato. 3 bil ee ugu horeyso waxay kasoo bilaabanaysaa maalinta ugu dambeysay caadada ilaa laga soo gaaro isbuuca 13aad dhamaadkiisa. Waa xilliga isbedelka ugu badan uu ku imaanayo uurjiifka iyo hooyadaba. Labada isbuuc ee ugu horeyso waa xilliga uu dhacayo fertilization-ka, sidoo kale xilligaas waxaa midoobaya chromosomes-ka waxa loo yaqaano meeshaas ayayna ka abuurmaysaa waxa loo yaqaano cunuga qaabka uu noqon doono, indhihiisa kalarkay qaadan doonaan, genderkiisa wiil muu noqonaa mise gabar, iyo wax kasta oo ku saabsan cunuga xilliga ay sameysmayaan waa xilligaas. Intaa kadib waxaa bilaabanayo qaab sameysanka cunuga asoo ka dhex bilaabanayo uteruska gudahiisa. Waxaa sameysmayo maskaxdiisa, laf dhabartii, jirkiisii, muuqaalkiisii iyo waxaasoo idil ayaa bilaabmayo. 3daas bil ee ugu horeyso ayuu waxaa sameysmayo gabi ahaan uurjiifka iyo qaabkiisii, maskaxdiisii, wixiisii dhan asoo complete ah waxa uu sameysmaya 13kaas isbuuc ee ugu horeyso. Waana 13 isbuuc ee loo yaqaano first trimester. Inta uu socdo sameysanka uurjiifka waxaa gabi ahaan isbedelayo hooyadii iyo dabeecadaheedii iyo waxyaabihii hore ay sameyn jirtay. Haddaba waxaan idinla wadaagi doonaa isbedelada ku imaanaya hooyada maxaa ka mid ah. Isbedelada ku imaanaya hooyada waxaa ka mid ah moodkeeda ama maskaxdeeda inay isbedesho. Sidoo kale waxaa ka mid ah morning sickness wax loo yaqaano oo ah lalabo iyo wareer ee hooyada dareemayso subaxii alsiidii ama subaxii ayay aad ugu badan tahay. Sidoo kale waxyaabaha isku arkaysa waxaa ka mid ah inay dareento hurdo badan ama daal fara badan. Mar walba waxay dareemaysaa in ay rabto inay iska jiifto kale iyo wixii la mid ah. Sidoo kale waxaa isku arkaysa waxaa ka mid ah miisaankeeda inuu yaraado ama inuu bato. Waxaa kaloo ka mid ah cuntooyinka qaar ama waxyaabaha qaar ee carfayo inay nacdo ama waxyaabana ay jeclaato. Waxaa jiro waxyaabo looga baahan yahay in ay sameyso hooyada. Mid ugu horeyso waxaa waa inay xaaladeeda la socoto, even haday dareento madax xanuun ama xaalad kale in isla markii aysan daawo intay soo qaadato aysan iska isticmaalin oo markasta ay check up sameyso in ay jiro pregnancy iyo in uusan jirin. Sidoo kale waa inay hooyada la xiriirto dhakhtar 3 bilood ugu horeyso. Waxyaabaha ugu horeeya looga baahan yahay hooyada inay sameyso waxaa ka mid ah inay dhakhtar uu ku takhasusay xanuunada haweenka inay xiriir la sameyso. Marka ugu horeysa dhakhtarka u tagto waxa uu sameyn doonaa baaritaano dhiig, waxa uu baari doonaa infection inuu jiro iyo wixii la mid ah. Sidoo kale uurjiifka meesha uu ku jiro waxyaabahaas oo idil ayuu xaqiijin doonaa. Qodobka labaad oo hooyada looga baahan yahay waxaa ka mid ah inay sameyso nasiino. Hooyada waxay dareemi doontaa daal fara badan, maskax ahaan moodkeeda inuu isbedelayo iyo wixii la mid ah. Waa inay sameysaa nasiino oo inta badan ay ku dadaasho sida hurdo iyo ay u heli lahayd. Sidoo kale saan hore usoo sheegnay hooyada waxay dareemaysaa lalabo. Taasina waxay kula tacaali kartaa in ay iska ilaaliso. Mid ugu muhiimsan waxaa inay iska ilaaliso waxyaabaha zaidka ee u keeni karo lalabada iyo mataga zaidka ah sida cuntada basbaaska leh, cuntada oo sokorta ay ku badan tahay iyo wixii la mid ah. Waa inay ku dadaasho waxyaabaha u fiican oo nafsad ahaanteeda ay ku dareemayso xasilooni iyo wixii la mid ah. Mataga hooyada hadduu zaid yahay oo wax kasta ay qaadato ay soo celinayso waxaa wanaagsan in dhakhtar ay la xiriirto si faleynba ahaan loogu quudiyo. Waayo markasta hooyada wax intay cunto ay soo celiso oo ay matagto jirkeeda ma galayaan. Haddaba hadduu mataga zaid yahay waa inay la xiriirto dhakhtarkeeda si loogu sameeyo hospitalization ama quudin oo isbitaalka ah. Isbedelka ku imaanaya muuqaalka hooyada waa wax caadi ah oo gabi ahaan inta ay uurka leedahay waa uu dhici doonaa gaar ahaan 3 bilood ugu horeyso. Hooyooyinka qaar miisaankooda wuu bataa
kuwa qaarna miisaankooda waa uu yaraadaa. So waa inay hooyada wax barbaleema aysan u arkin. Sidoo kale moodka hooyada ama maskaxiyan way isku bedeleysaa, wax yar inay dhibsato ayaa laga yaabaa oo moodkeeda uu zaaid isku bedelo. Ayadana waa inay isdejiso oo nasiinada ay ku dadaasho iyo hurdada aad ayay ugu fiican tahay hooyada xilliga ay uurka leedahay. Cuntooyinka u fiican hooyada 3 bilo ugu horeyso waxaa kamid ah liin dhanaanta hooyada, maadaama waxyaabaha macmacaanka ay dhibayaan hooyooyinka badankood, waxaa fiican cunto kasta ay cuneyso inay liin dhanaan ku darsato oo ay aad ugu dadaasho isticmaalka liin dhanaanta. Sidoo kale boorashka ayadan aad ugu fiican yahay hooyada. Waxaa kaloo kamid ah fruitiska noocyadiisa kala duwan sida cambaha, qaraha, liin macaanta, liin dhanaanta hore usoo sheegnay. Gabi ahaan way u fiican yihiin hooyada xilliga ay 3 bilo ugu horeyso ay ku jirto. Sidoo kale waxaa u fiican waxaa kamid ah vegetables-ka ama qudaarta cagaaran, waayo waxaa ku jiro fitamiino aad u fara badan oo aad u anfacayo hooyada dhiigeeda inuu soo celiyo oo uu kor u qaado. Sidoo kale waxyaabaha u fiican waxaa kamid ah caanaha waxay ka qayb qaataan inay dhisaan jirka hooyada. Waxyaabaha ku imaanaya waxaa kamid ah ilkaheeda oo kale inay jilcaan, timaha oo kale inay ka daataan. Caanaha waxaa ku jiro maado calcium loo yaqaano oo ka qayb qaadata dhisidda ilkaha iyo lafaha. Hooyada waa inay isticmaasho caanaha weliba aad ay ugu dadaasho. Cuntooyinka ay iska ilaalinayso hooyada waxaa kamid ah babaayga oo kale uma fiicno oo wuxuu keenayaa contraction ama xanuun. Sidoo kale cananaaska asna uma fiicno hooyada xilliga 3 bilo ay ugu horeyso ay ku jirto. Sidoo kale cuntada basbaaska leh hooyada wuxuu keeni karaa laabjeex ama gaas oo kale, uma fiicno. Waa inay cuntada ka dayso inay ku darsato basbaas. Maadaama aan sheegnay in 3 bilo ugu horeyso ay sameysmayaan gabi ahaan qaab dhismeedka uurjiifka, waxaa wanaagsan hooyada inay qaadato oo weliba lagula talinaya oo muhiimna ah fitamiinada sida folic acid ama pregnancy care. Waxaa inta badan la isticmaalaa pregnancy care. Waxa uu kamid yahay fitamiin oo dhameystiran. Hooyada waxay ka helaysaa dhammaan macdanihii iyo fitamiinadii uu jirkeeda u baahnaa. Waxaa ku jiro folic acid oo ka qayb qaato dhisidda uurjiifka, maskaxdiisa iyo jirkiisaba. Ugu dambeyn, hooyo ku xirnaaw dhakhtarkaaga oo bil kasta u samee follow up si lagu saaro computer loolana socdo xaaladaada iyo uurjiifka meesha uu marayo. Sidoo kale ku dadaal cabista biyaha. Hooyada inta ay uurka leedahay waxaa isbedelo maqaarkeeda. Haddaad rabto maqaarkaaga inuusan isbedelin, dhiigaagana uusan yaraanin, ku dadaal in aad cabto biyo badan, si gaar ahaan biyaha caadiga ah. Aad ugu dadaal. Waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Fadlan ku soo biir YouTube-keena oo subscribe saar.